السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا يوتيوب channel كيغا كحرين وان سلامي ميل كستود كسوغانتيهين وعاشا عاقني waxaan ka codsan lahaa asxaabteyda mar kale iyo asxaabta kale ee daawan doonta muuqaalkan waxaan idin ka codsanayaa inaad channelkayga subscribe iyo siisaan sidoo kale aad share gareysaan muuqaalkan haddii aad ka heshana aad like saarto commentigana aad ka baqiilin maanta waxaan idin wadaa qiso aad u xanuun badan oo waliba iyadoo ii tahay xilli aan munaasab hayna video duubo soo dadajiyay fariintan waxay iga soo gaartay gabar Soomaaliyeed oo qisadan ku dhacday ila wadaagtay qisada marka gabadhan ay ka sheekeynaysay wallahi indhahayga ilma isku soo taagtay oo aad ayaan markaasi u qiirooday xanuunka iyo dareenka ay gabadhaasi dareentay hadaba qisada ayaa idin bilaabi doonaa iyadoo markaasi halkan ay igu qoran tahay qisada laakiin waxaan rabaa maadaama la iiga sheekeeyay anigana aan qortay inaan idinkana idinla wadaago waxyaabaha noocaas oo kale ah oo hadana qisooyinka noocaas oo kale ah haddii aad jeceshahay inaad markaasi dadka la wadaagto hoos ayaad igu reebi kartaa lambarkaaga ama emailkaaga si aan kula soo xiriiro qisooyinkaaga dadka aan ula wadaago muuqaaladii kale quruxda badnaa iyaguna aan jeclaa inaan markaa idiin soo gudbiyo marka banaanada loo baxayo dalxiiska iyo vlogga iyagana waa soo socdaan ha sugu weynin waxaan leeyahay saaxiibada haddii aad daawanayso muuqaalka fadlan waxaan kaa codsan lahaa inaad subscribe channelka ii saarto subscribe-ka ayaa aad iigu yar marka waxaan idin ka codsan lahaa inaad subscribe siisaan saaxiibo badan oo iyagu markaasi daawanaya muuqaalkani waxay sugayeen doorayaan qisadan waxay ku dhacday gabar walaasheen ah ma rabo inaan magaca sheego arrimo jira awgood qisadani gabadha ku dhacday gabadhani dhowr sano ka hor ayay wadankan soo gaartay Kenya waa adiga xilliyadii dadka loo dacwoon jiray markaas resource waxyaabaha lagu bixi jiray hay'ado inan yar ah ay wadankan soo gashay qoyskeeda oo adeerkeed ahaa oo iyagu resource-kaas ku baxay ayay dartood u umaatay oo u xareeyay resource-kii kadibna resource-kii sidaad ka warqabtaan waxaa la dhahay dhiig oo dad aan isdhalin isma wadi karaan la dhahay sidaas darteed dadkii markii magaalada laga tagay magaaladeeda iska gashay waxay bilowday inay xamaalato noloshu waxay u baahan tahay mar haddaad joogto wadan ajnabi ah inaad marka xamaal aad sameyso si aad noloshaadii u dabarto gabadhii guri bay heshay yar dukaanna way ka shaqeyn jirtay sidaas ayay marka nolosheeda ku maareyn jirtay gabadha da ahaan waxay markaa jirtay xiriirka ay sameynaysay waxay jirtay dhowr iyo 20 sano adii 26 sano 25 sano meelahaas qiyaas ahaan laakiin waqtigan waa qof xaas ah oo la qabo oo meel degan hadirtaan laakiin qisadeedii ayay ka sheekeynaysaa ku dhacday oo laga yaabo gabdho badan inay ku dhacdo waxa ay markaa dareemi karaan xanuunka ay leedahay iyo sida aad markaa waxyaabaha qaarkood marka ay kugu dhacaan oo kale aad markaa uga jajafan karto oo uga kaban karto iyadoo adag tahay in marxaladaha noocan oo kale laga markaasi sheekada yaanan idinka dhexgelin gabadhii adiga qof bay xiriir wada sameeyeen wiil bay xiriir sameeyeen oo markaa kamid ah wiilashii ay markaa isbarteen dhanka Yurub ayuu ku noolaa marka wiilkii waxay ku heshiiyeen inay isguursadaan gabadha waxaa ka go'need inay noqoto gabar reer leh oo meel degan muhiimadeeda halahaas ay ahayd laakiin asaga ayaa marka mar walba wuxuu dhihi jiray aniga waxaan jeclahay inaan meesha aan joogo ku keeno inaan dibadda ku geeyo iyadoo waxay dhihi jirtay aniga waxa igu filan oo kaliya inaad hal meel aan isku wada noolaano taasaa muhiim ii ah waxay ahayd fikradda iyada ay aaminsanayd sida ay marka qisada iigu sheegtay gabadha marka waxay tiri waxaa dhacday in ciideeni oo iga doonto Soomaaliya ciideeda degneed arooska halkaas laga dhigay gabadhi hotel Nairobi ku yaalo waliba xaafad Islii oo halkii habeen lagu seexanaya 4000 ayay degeen hotelkii bilii hore kale uu bixiyay adiga marka ay imaadeen oo arooskii ay galeen gabadhi dukaankii ay idinka sheekeeyo shaqadii way ka soo tagtay gurigiina way fasaxday waxay isdheeysay nolol kala gashay oo ninkaada markuu ka tago asaga ka dhaadhiciyay inuusan idin guri qarash lagu ijaaray uusan heenin xaaladana ay tahay in hadartan kaliya 2 bilood bas uu joogo kadibna uu dacwad u xareeyo si ay isku meel ku wada noolaadaan ay xagga marka ay wada aadaan adigii way ka aqbashay qoftan waxay ahayd qof oo rabtay mustaqbal inay sameyso ma rabin inay marka shuruudo badan ay ku xirto ninkani adiga calaf ba halka ka qornaa way isguursadeen waxay noqdeen dad meel wada degan oo hotel ay wada degeen guri laakiin ma aysan wada degin marka hotelka ay degeen
mudday deganaayeen gabadhii noloshoodii maasha allah dad isqabay ahaayeen kolley markaas wax iyada dhankiisa ay ka dareenta ma jirin laakiin gabadhan qisada ka sheekeynaysa waxay tiri ninkani aniga waxaan u ahaa daacad laakiin isaga wuxuu rabay wuxuu watay lugooyo aada u weyn oo markaa ay qisada markaa ku fadhido lugooyadu waxay noqotay gabadhii 2 bilood kadib markii 2 bilood ay dhamaatay inuu bil kale haddana kusii darsado iyadana ay dhahayso xataa reerkii ay biili jirta xataa uu awoodi waa inuu bil u dir maadaama 3 bilood buu meesha joogay xagga uusan joogin haddii iyada wax kale ay ka heli lahayd marka waxyaabo badan ay ku fakartay xataa inuu asaga iyo laabto iyada ay gurigeedii ku noqotay guri ay raadsato kadibna shaqadii xataa ay bilowdo ugu yaraan laakiin asaga dhabarka u garaacdo oo yiri lagama yaabaan xaaskeyga inay meel ka shaqeyso ana reerkiina biilaa adna ku biilaayo niyadiisaasay ku dhisatay noloshoodii sii wateen bishii kala la dhameystay ilaa 2 bilood oo dambe xataa ma usan bixinin ijaarka guriga ijaarka hotelkan ka wada saas markay ahayd habeen buu ku yiri habeen kamid ah waxaan rabaa asxaabteyda inaan aado wiil baxayo inaan rabaa alaab wiil ugu dhiibo marka ayada hotelkii joogtay galab ahayd uu ka tagay ilaa galabkaas habeenka ka horeeyay ayuu alaabtiisii dhan xirxirtay alaabta uu dhahayo wiilka u dhiibaya ma ahan alaab loo dhiibayay waa alaabtii isaga uu lahaa boorsooyinkiisii uu hotelka ka dagsaday ninkan tigidkiisu u go'an yahay galabtaas habeenkeeda ayuu baxayaa maqribka iyadana wax ay kala socoto ma lahan marka sidii ku seexatay iyadii habeenkii dhan way sugeysay sidii markaa ku gamaaday markay weyday telefoonna way ka weyday kadib waa iska sugeysay waxay tiri wuu imaan doonaa waagiyaa bariyay dadka hotelka way ogaadeen ninka inuu boorsooyin dejinayay waxaa la dhahay subax albaabka loo soo garaacay waxaa lagu dhahay ninkaagiina boorsooyin soo wataan aragnay adigiina waa kana lacagtii la iska rabaa xisaab xiraa jiro markaa bishii dhamaanaysay lacagtiina aad bay u badatay 2 bilood lacag la ku leeyahay inkastoo bishii hore bilowga ay soo dageyseen aad bixiseen gabadhii waa ama kaagtay waa naxdin iyo ama kaag lacagta kama aysan nixin waxay ka naxday ninkaagii xala soo ma seexanin taasa marka walwal ku abuurtay iyadii isagii u baqaysa ma aysan is oranaynin ninkan wadankiisi ayuu ku noqdo marnaba isma aysan oranaynin laakiin waa ay dhacday qadartaasi xanuun kale gabadhii xanuun baa u yimid markii waxyaabihii lacagtii iyo ninkii baa tagay la dhaw waa iska dareemi kartaa marka isbitaal bay la geeyay ama dad kale ha u imaadaan ama qof kale ha caawiyo marka xilliga dadka la joogo unbaa caawiyeen isbitaalkii la geeyay gabadhii waxaa la yiri uur baa ku soo baxay waa iyadana qeyrkeeda laakiin haddana dhibkeeda ninkii lama hayo gabadhii uur bay leedahay marka qisadii gabadha ku dhacday waxay tiri nolosha markaasi waxay ii noqotay xaraar marka qofkii shalay nolosha aad la wadaagto oo aad rabtay inaad markaa mustaqbal dheer iyo guri dheer aad la sii degnaato oo la sii noolaato maanta hadduu kaa tegay telefoonki aadaad wacdo xataa lagaa qabaneyn wiig bay jartay 2 beri bay jartay saacado bay dhaaftay ilaa akhbaar lagama hayo haddee wacdo xataa meelay ka la xiriirto lambaradii hodeeda wacdo wax uu qabanaya ma lahan marka awalkii hore gabadha aniga markii guursanaysa awalkeedii horeeto dee way isbarteen oo internetka iska barteen laakiin qabiil ahaantiisa markay qabiilkiisa iyada reerka un baa weydiiyay reerka uu ka dhashay laakiin waxaa cadaatay markii la raadiyay xataa in reerkii uu sheegtay xataa reerkaas wax ah asaga inuusan jirin la sheegay oo waxyaabo yani qabiilka uu qalday dhankiisa magac xataa ha soco laakiin qabiilka uu qalday marka sidii lagu raadi waayay lagu heli waayay si kastoo la yeelo marka gabadhii iyada wax kale wareer kale kuma dhicin oo noloshii baa xaraar u noqotay iyadoo hadana uur leh shaqo heenin gurina haysanin lacagna lagu qabsaday lacagtii dadkii tolkeedii iyo dad baa isku dardaro oo lacagtaadi waa la bixiyay laakiin xanuunka ay dareentay ma ahayn lacag lala tago iyada laakiin nolosheedii oo dhan buu baabi'iyay qayaano weyn ayuu ku sameeyay marka qisadaasi xanuunka badan ayaan jeclaystay inaan idin la wadaago bal arinta sidoo oo aragtaan daawadayaal muuqaalkan waxaad ka daawanaysaan channelkayga Caasha Cagane haddii aad ku cusub tahay waxaan ka codsan lahaa inaad like saarto share gareyso asxaabtaada la wadaagto subscribe-kan aad iga iloobin idinka oo mahadsan markale waxaan idin leenahay qisooyinka aad isleedahay ama sheekooyinka noocyadan oo kaleeta ay dadka ku dhaco ama haday idinku ugu dhaceen ama qof kale waan jeclahay inaan dadka la wadaago balse gabadhaasi oo hadda dhibaatadaasi ku dhacday in la wadaagay dareen ahaan bal sideed oo aragtaan commentigiina ay ku soo dhiiban doontaan qaybta hoose ee muuqaalka waan idin mahad celinayaa mar kale subscribe-ka ka iloobin muuqaalka waadna mahadsantihiin thank you dhamaantiin